St. Petersburg ayuu ku dhashay hilaadii 1952 waxa uu dahaan jirsanayaa 70 sano marka la gaaro bisha tobnaad ee sanadkan. Nasiib lowga dagaalka ayaa qoyskiisu ay ku naanaysaan ka badbaadintii aabihiis uu u sameeyay hooyadiis maalmihii dagaalkii labaad ee dunida. Vladimir Putin madaxweynaha dalka Ruushka ayaynu eegaynaa kacaankiisa taariikheed iyo sooyaalkiisa siyaasadeed ee hogaaminta midowga labaad ee Ruushka. Vladimir waxa uu ka baxay jaamacad ku taala isla magaalada uu ku dhashay. waxa uu bartay qaanuunka sanadkii uu qalan jabiyayna waxa uu ku biiray ciidanka sirdoonka iyo jaajuusnimada ee dalkiisa hay'adda mar loo soo gaabin jiray KGB. waxa uu soo noqday madaxa arrimaha dibadda ee hay'addaas kadib inta uusan ku shaqaynin xafiis ku yaala bariga Jarmalka halkaas oo ugu dambeyntii uu ka tagay shaqada ciidanka 1991 ayuu si rasmi ah uga dhex baxay hay'adda sirdoonka waxaana uu ka gaaray darajada ciidan ee Colonel Putin waxa uu leeyahay sooyaal taariikheed oo uu ku lamaanan yahay nasiibka xilka iyo nasiibka guusha oo wada socda. magaaladiisa Leningrad ayuu ku soo noqday ku-xigeenka maayarka waxa uu uga sii gudbay Moscow isagoo ka shaqo bilaabay xafiiska midabka dhiigga leh ee Kremlin. ku biiristii shaqaalaha aqalka madaxtooyada ee dalkaas ayaa u ahayd tallaabada horumar ee uu gaaray. hab maamuuska ayuu kaga shaqeeyay xafiiska madaxweynaha waxa uu sidoo kale soo noqday agaasimaha amniga qaranka ee dalkaas isagoo si toos ah uga mid noqday kooxda madaxweyne Boris Yeltsin. intii uu soo noqday xogayaha guud ee amniga qaranka sanadkii 1998 ayaa u sahashay in shaqadiisa uu ku qanco Boris waxaana bishii saddexaad ee sanadkii 1999 uu u magacaabay ra'iisul wasaaraha dalkaasi. tallaabo dad badan ku noqotay la yaab kadib magacaabistii xilka wasiirka koobaad shakhsi aan lagu aqoon siyaasadda iyo salaankeeda afgaamnida iyo aqoon la'aanta dadka ka haysa ayaa keentay in Putin uu ku magac ku helay sida uu u maareeyay kacdoonkii koobaad ee Chechnya waana halka ay ka soo muuqbaxday awoodda hogaamineed ee madaxweynaha habdhaqankiisu maamulka adduunku la jafacsan yahay. bishii sagaalaad ee sanadkaasi 1999 ayuu si lama filaan isku casilay Boris waxaana si ku meel gaara xukunka uu ugu dhibay Vladimir Putin. qisada 22 sano ee hogaaminta Putin iyo aragtidiisa midowga Russia ayaa halkan ka bilaabatay. sanadkii 2000 ayaa loo doortay madaxweynaha dalweynaha Ruushka halkaas oo dadkii codeynaya ay ugu abaalmariyeen inuu madaxweyne u noqdo muddo 4 sano ah. afgaamanaha aan saxaafadda ka soo muuqan 4 sano ee hore waxa uu shaqo la yaqaan ka qabtay musuqa waxaana uu dib u dhisay kaabayaasha dhaqaalaha oo ku socday kobocii ugu weynaa wixii ka dambeeyay burburkii midowga Soofiyeedka. gobolladii baahsanaa iyo guddoomiyaashii maamul ee musuqa iyo awoodda badnaa ayay seeftiisu qaaday. dalkana waxa uu qaybiyay 9 maamul oo madaxtooyada hoostaga. dhinaca ciidanka ayuu tayeeyay waxa uu qaaday dagaalkii labaad ee Chechnya muslimiinta ayuu xasuuq ba'an u geystay waxaana uu ku soo celiyay dalkiisa. aragtida isballaarinta ayuuna xilligaasi ibafur u dhigay. dagaalkii Ruushka iyo dalalkii ku kala yaacay ayuuna isku tolay. xilhayn labaad ayaa mar kale loo cimaamaday 2004 waxaana uu ku guulaystay aqlabiyadda golaha baarlamaanka. waxa uu xilligaasi meel mariyay xeerar badan oo la xiriira ganacsiga iyo dhaqaalaha iyo xagga militariga. hilaadii 2008 iyadoo xilkuusu sii dhammaanayo waxa uu isku fidiyay bariga Georgia oo ka jaray Abkhazia iyo Ostia. dagaalkii caalamku ku baraarugay soo noqoshadii midowga Soofiyeedka ayuuna halkaasi ka bilaabay. 4 sano oo gadaal uu ka maamulayay Putin waxa uu soo laabatay mar kale 2012 Medvedev oo ahaa nin uu siyaasadda ku soo daray ayuu xilka madaxweynaha u dhiibtay muddadii uu ku shaqaynayay ra'iisul wasaaraha dalka. haddana mar kale waxaa ra'iisul wasaare noqday isla ninkii xukunka uu kala wareegay. wiilka magaaladan ka soo jeeda ee jecel dabaasha waxa uu hadda qaadanayaa maalmo uu hubinayo awooddii uu dhisay ee dalkiisa kadib markii uu reer galbeedka kaga adkaaday Suuriya. waxa uu duqeyme ka geysanayaa Kiev oo ah xarunta Ukraine. baryo iyo tuugnimo galbeed ayaa u muuqatay oo u muujiyay mid aan jixin isaga ka muujinaynin
dagaalka socda waxa ka yar 3 maalmood ayuu caasimadii Ukraine ee Kiev ku galay waxaana ciidanka dalka Ukraine ugu baaqay inay gacmaha laabtaan oo guryahooda seexdaan waxaana uu isku diyaarinayaa in uu Ukraine u dhiso dawlad uu isagu kor joogteynayo ma jeceshahay inaad barato quraanka kariimka ah iyo culumta shariicada ugu kaalay markaska Nuurayn online oo baro adigoo gurigaaga jooga quraanka higaada iyo culumta kale islaamka wixii faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda